maxkamadda gobolka Awdal ayaa maanta xukunno kala duwan ku riday saddex rag oo hore loogu soo eedeeyay in ciidamada boolisku soo qabteen iyagoo si qarsoodiya u soo gelinaya jaad magaalada Boorama. Xukunkan ayaa imanaya markii ay dhawaan gudida heer qaran ee ka hortagga cudurka coronavirus ay joojisay in jaadku soo galo dalka Soomaaliland. Gudoomiyaha maxkamadda gobolka Awdal Cabdiraxmaan Geedi Barre ayaa ku dhawaaqay xukunka eedeysanayaashaasi isagoo sidoo kalena sheegay in ay dawladdu la wareegtay gaadhigii lagu waday jaadka. maanta taariikhdu tahay 5tii bisha shanaad 2020 waxay maxkamadda gobolka Awdal soo saartay xukunka dawladda iqaabta ee lidka ku ah eedeysanayaasha magacyadoodu kala yihiin Ayaala Saciid Khaliif iyo Ibrahim Saleebaan Cilmi iyo Arab Cabdillaahi Madar kuwaas oo si wada jira loogu soo yeedeeyay inay qaad ganacsiga soo gelinayeen magaalada Boorama iyagoo ciidanka booliisku ay ka soo qabteen qorayaal iyaga oo soo gelinay qaadkaas hore loo joojiyay hore loo mamnuucay markaas ciidanka booliisku soo qabtay dawladda markii la dhageystay marxaatiyadii la qaaday qodobada lagu soo yeedeeyay la eegay si buuxda ay ugu cadaatay eedeysanayaashaas inay geysteen faldambiga lagu eedeynayo marka maxkamaddu waxay ku xukuntay eedeysanaha koobaad Ayaala Saciid Khaliif waxay ku xukuntay 3 sano xariga iyo gaadhigii la kurusanka ee ku soo waariday waxa qaadka ku soo qaaday waxay xukuntay inuu la wareego ciidanka booliiska ee gobolka Awdal eedeysanayaasha labaad iyo saddexaad waa Ibrahim Saleebaan iyo Arab Cabdillaahi kuwaasna waxay ku xukuntay midkiiba 2 sano xariga iyagoo la qabtay iyagoo mid waliba 10 marduuf oo qaada uu soo waaridayay. inta kadib xeer ilaaliyaha gobolka Awdal Cabdi Haybe oo warbaahinta la hadlay ayaa soo dhaweeyay xukunkani waxana uu sheegay maanta xukunka wad maqlayseen halkan waxa yaala gaadhigii lagu soo qaaday jaadka ee ku soo qaaday eedeysanii ay maxkamaddu xukumaysay saadiraadid anagu xukunka maanta maxkamaddu ay xukuntay waanu ku qaracsanahay waanu soo dhaweynaynaa waxaanu sheegaynaa cid kasta oo falka lamid ku kacda in laga qaadi doono talaabadan mid lamid ah halkan mataqaanaa waxaad arkaysaan in lala wareegay gaadhiga la karuusarka isla markaana eedeysanayaashana la xukumay anagu habeenaya maalin soo jeednaa inaan soo qabanno qof kasta oo jaadka trabaana soo gelinaya dalka qof kasta oo ku talagal soo geliya jaadka la mamnuucay ee bulshada u xun ee caafimaad darrada keenaya waa Cabsalaan Saaha warbaahinta qaranka Soomaaliland magaalada Boorama.